shir saxaafadeedka bilaha ah ee wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ku faahfaahiyay guulaha Soomaaliya ay ka gaartay hagaajinta maamulka maaliyadda oo ku xiran nidaamka deemaha looga cafinayo Soomaaliya. waxa uu sheegay wasiirku in shuruudihii ugu muhiimsanaa deen cafinta ay ka gudubtay Soomaaliya ka hor waqtigii loogu talagalay sida ay qireen madaxda hay'adda lacagta adduunka. waxay yiraahdeen arrimihii laydinku talagalay June inay dhamaadaan waa dhamaysteen waa ka soo baxdeen waana mahadsantiin bay waa saddex bilood soo idmoor arrimihii loogu talagalay September endkeeda oo wali dhamaana ilaa 15keedii 20keedii baan joognay ayagana intoodii badnayd waa dhamaysteen shikirina gigma jiro inta hadda in September soo dokeeda dhamaynaysan waxa kale oo yiraahdeen way ka sheegaan waraaqaha ka akhrisanaysan internetka press release kay soo saareen arrimihii loogu talagalay December ina dhamaysan intooda badan waa dhamaysteen khayr Allah hadiis yeemayday waa diis bedeshay meeday si fiican baad u socotaan beeyay ya shikirina gigma jiro dhamaynaysan arrimaha ugu dambeeya ee la idinka rabo March 13keeda qaar badan waa ka gudubteen beeyay wasiirka maaliyadda waxa uu tilmaamay in deeq bixiyaasha caalamka oo ay ugu horeeyaan bangiga adduunka iyo midowga Yurub ay Soomaaliya ugu deeqeen 427 milyan oo dollar iyaga oo ka duulaya sida Soomaaliya ay u fulisay shuruudihii ku xirnaa nidaamka deen cafinta. World Bank waxa ka imanaya 140 milyan oo dollar yaa ka imanaya intaas oo dhan ay tahay habka aan isku maamulay maanta waxa la inagu aaminay waxa 100 milyan oo euro inay EU tiraahdo way dhiseenayna of course iyaguna jid kale iyo banay tub kale oo leeyihiin aan dhiseenay waxa sameeya mala 6 bilood baan ka shaqeynay dhowriye 80 kale ayaa jira oo ah mashaariic ayaa jira 40 kale milyan baa jira oo ay African Development soo marinayaan ka isku wada geyso geedi socodka maanta imtixaanadeedii la naga qaaday ee aan soo dhamaynay away 427 milyan. wasiir Beyle waxa uu meesha ka saaray in ay deyn tahay lacagaha la siinayo Soomaaliya oo warbaahinta qaar ay daabaceen. waxaan halkan ka sheegayaa khalad baa meel ka dhacay baan u maleynayaa lacagtani deyn ma aha waa deeq weyn keep my lips waa deeq weeye deyn ma qaadan karo. dabagalka lacagaha deemaha caalamku ku leeyahay Soomaaliya ayuu soo hadal qaaday wasiirku waxaana uu sheegay in ay ku ogaatay wasaaradda maaliyadda lacag dhan 1 bilyan oo dollar inaan loo hayn cidii saxiixday iyo sidii ay ku timid. waxaan imanoo waxaan dawlad baa imanoo waxaan ku leeyahay mid walba waan register gareynay ilaa anaga waxaan tusnaamay jiro soo waxba meynaan wax walba gudnay waxaan inaanu jiro waxay leenugu leeyahay marka imaga waxaan niri dhageyso dad waxna u leedahay waraaqoodii keen ma haysa waraaqoodii aan kula saxaanay waxaan ku niri cid walba waraaqan u diro waqad lacag baan ku leenahay baa tiri 1 bilyan waraaqihii dawladda Soomaaliya kula saxatay keen qaar ba keeni waayay oo ka jaray meeshii ka jaray keeni waayay oo ka jaray waa ka jaray imaga waxaan u maleynayaa waa la isixi karaa 4 bilyan iyo bar inay tahay markii hore waxay 5 bilyan iyo bar baxay. dawladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay madaxdeedu inay ka go'an tahay hagaajinta maamulka maaliyadda si caalamka u aamino loogana caafiyo deemaha lagu leeyahay iyo kobcinta dhaqaalaha si ay Soomaaliya u gaarto isku filnaan. dariiq fiican ma ku dhacnay tub baan ku dhacnay fiican si fiican imika wararka dhigayso waxa dad ku leeyahay waxa adduunku leeyahay dariiq fiican ma ku dhacay waana ku taagnaayna arrintan dariiqa ku dhaco ee dhaqaalaha dhis one national priority sida madaxweynuhu prime minister kuma yiraahdo all the time one national priority cid walba mas'uuliyad ba ka saaran. wada hadallada deemaha looga cafinayo Soomaaliya oo maraya heerkii ugu dambeeyay ayaa dhamaanaya marka la gaaro bisha May ee sanadka soo aadan. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa u muuqata mid muhiimad gaar ah siisay hagaajinta maamulka maaliyadda oo ku xiran horumar dalkeenu gaaro. Cabdishakuur Ali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho.